تعالى وبركاته والسلام أنا أصحابتي اللي كنت عن ساينس 24 waxaan ku soo jirnay ama dhiganay casharada ku saabsanaa boqolleyda casharo fara badan oo boqolleyda ku saabsan ayaan ka soo hadalnay maantana waxaan ka hadli doonaa cashar kale oo kamid ah percentage-ka ama boqolleyda kamid ah waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaano expression one quantity as a percentage of another sideen ugu qeexi lahayn hal quantity percentage ay ka tahay mid kale marka tusaale ahaan oo kale waxaan haysanaa in examination a girl obtains 69 marks out of 75 express this result as a percentage marka examination ba gabadha gashay waxay heshay 69 dhibcood bay heshay meel 75 dhibcood waxay ka heshay 69 marka imtixaanka lagu saxay 75 waxayna heshay 69 dhibcood marka waxaad u qortaa resultigan percentage ahaan qor marka resultiga gabadha heshay intay ka 69 kaas intay ka tahay 75 taas ayaynu waxaan u qoranaa result marka 75 taas waa imtixaanka lagu saxay waa boqolkiiba boqol كلا تواتر شن دبعات مين بقول كبقول هي سنة هاي لكن نحن الشن بكنتي كعندنا أنت إنهم خصوصا هرنا برسنتج هان مكاهوي quantity اللي إحنا شن تاس أنت quantity كسكتة برسنتج تواتر شن تاس أيام برانا تاسال لها expression one quantity إن خصوصا أنت برقيق كل كتها أنت برسنتج كتها هاي نتذكر إحنا سقاف أنت كتها هاي تواتر شن تن أيام توصلنا مكان سؤال عام وكلام كلامك يقول سان أنا حللنا البروبلم أنا كلام حميم وقف كل مركور إنه يجي هاي وهو هايستو يوقف الرادنية مرة هذا روح اللي نسيه إنه هيسنا لحنا يسقال قبل ده هايستو لحنا يسقال خلي لحنا يسقال كاس وحوي وأمونت قبل ده هايستو ما كان حدا هنا وأمونت أو بيسان تضبطنا الشام تضبط الشكل اللي بنتحمل وكوكوبية ما كوا توتال كي تحمل كوكوبنا ما كان ده لأنه محرنا original value أما ده امتحان total كي امتحان كنا total marks ونحن وحنا نكتبه أنا وحرصت تجانا قرنا percentage هان كأحنا ورانا حنو بحنا B ولا نكتبه percentage ولا نكتبه مركا فورمولا نصدق ذن فورمولا كذا هل فورمولا كذا كده حيسا فورمولا قصة صار هذا فورمولا داس قرنا شغل فورمولا داس حويه B waxay la mid tahay percentage waxay la mid tahay amount-iga loo qaybiyay original value ama total-ka inta shayga hadba shaygaas isticmaalay total-ka intuu ahaa ama original-ka shaygaas intuu ahaa marka qaar original hadda waxaan ugu qoranaa maadaama marka qaarkood ay ku jiro maganaasa wax la iibinayo marka qaarkood waxa lagu yeelaa shayga inta lagu iibin inta soo ahaa marka original value isi soo ahaa marka sidaa ugu waxaan waxaan iska soo qornaa original value laakiin waxa la qori karaa total ama shaygaas intuu ahaa marka original kiisa ku dhufanana marka lagu sifta boqol intaas ayaan waxaan ku soo saaranaa percentage-ka shaygaas yahay marka hadaan formulada hadda taqaan mar walba soo saarka hadaan formulada hadda calaamadino formuladaas mar walba ku shaqeynana marka formuladaas ayaan ku soo saarnaa marka hadda formulada taqaani waa formulada percentage وصار صار كتا سوري حاشكلو حانتا تري يا زول مركا لما حنا صار كتا ترو فورمولا مركا هذا تقاليد او تاع برسنتج علامه تاع امونت لو غبي اوريجينال كان مركا توتال كنتو ها وفت بقول مركا وصار صار كتا انت ريزلتيغاس كايا مركا هذا فورمولا تقاليد مركا قار waxa lagu weydiinaya amount-iga ويمسا شيء اسمه مساعد عضو يا شيخ ولا كذا أما original value اسمه سوها ولا ترى ولا وسال ورين original value اسمه سوها هذا فورمولا تقاني صدق هو صار كتا أو إحنا صورنا 10 كيها يصير لورد رانديو أو لورد صار فورمولا لورد رانديو هذا هو الجرل ولا الحرف بالدنيا 10 كانوا ونصوها ولا 10 كونا قصة هذا اللي بكمل لها صرت وأنا قاعد بيوم يوم حسابتي فيزيكس كان لقى مرمى وقف دوس أنا قون سوى فورمولا كل وصل رانديو ولا سوود ولا فورمولا حرف وصل حساره حسابتي فيزيكسكا يعني هرم وصل عنك وقف مربع قرب بكلام معايا هرم كان حسابتي فيزيكس مرنا ما في عناك رأي وما حل كرأي حساب فربنا بروبلم فربنا ما دام عقود أساسا وصل لورد رانديو وصلنا جرامين أما وصل كوهين قف مركبة صور رانديو كذا مركا عادي بيومين حسابها لورد رانديو وفرياش كم حسابتي فيزيكس كم قف دوسا furahaas haysan
وكوات كان سامر هو هذا كسوقات فورمولا هذا هيسمى عارف بنكون بدلنا كدينا ونصوصها مركا عنا برسنتج كاس waxay la mid tahay b amount-ga saygaas intuu ahaa oo 69 عنا 69 kaas loo qaybiyay in totalka intuu originalka ama totalka ahaa 75 oo qaybina oo lagu dhuftay 100 intaas aan soo qaybinaya kadib inta wax ka soo baxaa weeye marka waxaan ka raadiyay 75 waxa uu qaybisaa 5 waa 15 boqolkana waxa uu qaybisaa 5 waa 20 15 hadda 5 u qaybina waa 3 hadda 20 5 u qaybina waa 4 kadibna waxaan soo qaybinayaa 3 dana waxaan qaybinayaa 3 qayb waa hal waa 69 loo qaybina waa 3 iyo 20 marka 3 iyo 20 hadda ku dhufto 4 na waxa ay soo baxaya 9 iyo 2 marka 9 iyo 2 boqolkiiba marka b hadda waxa la mid tahay 9 iyo 2 boqolkiiba marka gabadhaas waxay heshay imtixaanka waxay heshay 9 iyo 2 marka 69 kaas markaska dhibaha ay keentay 75 dhibcood waxay uga dhigantaa 9 iyo 2 meel waxay keentay magaalada markas fiican bay keentay sababtaas imtixaanka ay gashay gabadhaas marka saasaan ku saari karaa hadda markaan saasaan ku saari karaa radda formulada oo ku shaqeynaya inay calawiyay marba taasaan ku saaraya waxaan doonayo marka qaarkood oo kale si aan markii uu soo xusnay waxa lagu weydiinayaa amount oo kale lagu weydiinayaa ama original kaas lagu weydiinayaa hadda amount waxna aysan 69 kaas haddii aad 69 kaas dib u raadino tusaalahaan kale waxa lagu yiri imtixaan baa gabadhaas gashay waxay keentay waxa lagu siyo kale dan waxna waxa lagu siyo kale gabadhaas waxay keentay lagu yiri sorry 9 lama qorna سلام عليكم والله صحيح كنت 9 لو boqolkiiba marka waa b waa percentage keentay gobol iyo originalka waxa ama totalka waxa ama originalka waxa 75 dhibcood ba ka keentay 75 dhibcood gabadha amount-ga ay imtixaan ka keentay inta markay ka keentay gabadhaas muxuu ahaa lagu weydiiyay markaan aan qorno answerka ama jawaabtaan qorno waxaan haysanaa formuladaas in naqaana formuladaas marka si loo dhiraandhiyo hadda waqti badan in ku lumin meeno sababtoo ah aad hore uga soo hadalay waxyaalo far badan ku saabsan loo dhiraandhiyo waxa isku dhacay originalka tan isku dhacay originalka ay bida isku dhacay boqolkiiba oo qaybsan doona kadina amount la soo dhigay marka waxaan oran karaa amountkaas wuxuu leeyahay b waxaan qori karaa b waa percentage waxaan qori karaa doona saasaan qori karaa oo lagu dhuftay original value and original price marka bidan oo kale bida boqolka waxaan soo barnay wal hore 92 micne waxa la mid tahay soo barnay waa 92 loo qaybiyay boqol markuu fraction markuu hooseeyo boqol noqdo baa la bixiyay percentage calaamada la siiyay la sidaa waxaan qori karaa b loo qaybiyay boqol oo lagu dhuftay original value waa 75 taasaan qori karaa marka kadibna b inta time ku bedelna halkaas marka hadda b daas inta yahay ku bedelo aan dhigo 92daas kadibna taasaan soo qaybinay 69 kuna dib u helaan 69 kan ugu hore marka 75 hadda ka 75 shan qayb ma oranaya waa 15 tan shan qayb waa 20 shan qayb waa 3 tan shan qayb waa 4 9 loo hadaan u qaybiyo 4na waa 23 kala 23 hadaan 3 ku dhuftana waa 69 marka dib baynu uga helay hadeer 69 markas bay keentay dhibcaha marka saasaan dib ugu heli karaa xisaabtii hadda aan raadiyay oo ahayd inaan 69 dib u raadiyo marka saasaan ku soo saaraya mar walba xisaabtaan raadinayo بخايسكنا هذا اسكو دينا فورمولا استعماشيد كدينا اوريجينال بخايسكا سو هشي اوريجينال بخايسكا سو هري كرتا فورمولا استعمال كرتا كدينا سيرش فورمولا كدي كرتا اوريجينال كدينا ساسا كولي كرتا كادان تساله كلا بخينو تسالهان او كلا لان تساله بي بخين تسالهان او كلا ان بيكم معاونو شاعر waxa lagu yiri
express 10 euro as a percentage. يعني 10 euro waxay beddelaysaa percentage intay ka tahay soo saaraysaa يعني 50 euro. marka imse ka tahay lagu yiri 10 euro imse ka tahay boqolka يعني konton euro imse ka tahay. marka formula hadda waan aqaanaa percentage ku soo saaray formuladii baan kaliya qoranaa. marka waxaan oranayaa percentage waxay la mid tahay amountiga oo lagu dhuftay 100 oo loo qaybiyay original value ama original into shaygaas ama totalkii intuu ahaa. marka kadib intii waan ku bedelay hadda waxaan haystaa 10 euro oo loo qaybiyay oo lagu dhuftay 100 oo loo qaybiyay 50 euro. marka waxaan isgoosanayaa euro isgoosanayaa ibarkaas isgoosanayaa 5 qayb waa hal tan 5 qayb waa 20. marka answer waxaa mid noqonayaa 20. marka waa 20%. calaamadan waan raacinaya because waxaan raadinayaa percentage micne percentage ka calaamadiisa waan raacinaya. marka saasan ku helayaa inuu shaygaas ka yahay. marka saasan ku saaray mar haddana aan aqaano formuladaas marka qaarka originalkaas micne originalka ama total value intuu soo saari kartaa bida soo kala soo saari kartaa waxa rabtid soo saari kartaa saadi biyo u saarnay amount soo saari kartaa sanad biyo u saarnay. marka formulaas ku raadaysa kaliya waxa muhiim ah inaad ogaatid waxa raadinaysid waa muhiim inaad ogaatid. kadaan tusaale kala bixino wasiin ilaahna tusaale ahaan oo kale waxa lagu yiri waxa soo saartaa class waxa dhiganayna class of 30 students يعني صدر أرضيبا dhiganayeen 20 kamida waxay leeyihiin timo madow oo kale half black hair tusaale ahaan oo kale timo madow bay leeyihiin. 10 kamidana waxay leeyihiin blonde hair bay leeyihiin timo blonde leeyihiin. 70 kamidana waxay leeyihiin brown hair bay leeyihiin tusaale ahaan oo kale brown hair. waxa la yiri waxa soo saartaa intay ardadaas ka yihiin mine arday walba mine ka yihiin ardadaas mine class ka yihiin oo lagu soo saarto tusaale ahaan oo kale. markaan doonayo inaan soo saaro ardadaas waxaan arday hadda waxaan haystaa totalka waan haystaa mine waxaan oranayaa tusaale ahaan su'aasha qoro oo kale lagu dhaho calculate waxa soo saartaa as one time calculate the number of which sorry نعاد ورا صراحة راح لورنا okay which black hair marka doonayna soo saaro black hair kaas aan doonayna soo saaro dad black hair kale wax kale ma oranayo waxaan haystaa originalki iyo percentage-ki waxaan raadinayaa amount-gida shitay ka yihiin shaygaas. marka amount-ga maxaa lagu helay shaygaas amount-giisa wax kale lagu helay amount-gu wuxuu la mid ahaa ama wuxuu la mid ahaa percentage-ka oo lagu dhuftay originalki ama shaygu intuu ahaa gebi ahaantiisa totalki waxaa la qaadaa total. marka hadda waxaan haysanaa 20% waxaan hayaa 20 loo qaybiyay 100 oo lagu dhuftay 30 inta ardaydu ahayd. kadib waxaan isla go'ay eberkan iyo eberkaas waa isla go'ayaan waxaa soo haya markaa 2 lagu dhuftay 3 waa 6. marka ardaydu timaha madowda waa 6 ka waa 6 arday. marka ardayda kale hadaan soo saarno oo kale tusaale bit height kale lagu yiraahdo soo saarta ardayda timaha blonde leh
ardayda timaha blonde heer micne leh yana waa sidoo kale qaacida waa isku meeshii lawa amount waa isla meeshii waxaan qorayaa marka percentage-kii oo lagu dhuftay total-kii intii ahaayeen ama original-kii ama total-kii intii ka koobnaayeen marka waxaa la mid tahay marka imisa arday baa 10 bay ahaayeen 10 loo qaybiyey 100 oo lagu dhuftay 30 kadib intii sidoo kale intii aan soo qaybinayaa labada euro isku sanay markaan euro isku sanayaan waa 3 baa ka soo haray waa hal lagu dhuftay 3 waa 3 marka waa 3 arday baa timaha blonde leh haddana ka sidaad ugu dambeysana ardayda leh brown hair waa ardayda ugu badan oo 70 boqolkiiba waa isaga waa ardayda ugu badan oo galaaska marka iyana waa sidoo kale amount-kii aan raadinayo ama inta shaygi waan ka raadinayo lamid yahay percentage-kii oo lagu dhuftay total-kii intii ardaydu ahayd ama original-kii intii ahaayeen kadibna waxaa 70 oo loo qaybiyey 100 oo lagu dhuftay 30 kadib intaasaan soo qaybinaya eberkan isku sanayaan eberkaasna isku sanayaan waxaa 7 lagu dhuftay 3 waa 21 marka ardaydaasna waxay ka 21 arday weeye marka total-ka hadda markaas ku daro 30 noqdaan marka 6 lagu daray 3 lagu daray 21 waa 30 marka total-ka ardayda waa inuu noqdaa waa 30 waa 30 marka saasaan ku saaraya marka mar walba kaan doonayo marka qaacidada lama isticmaalaya kadibna waxa ugu muhiimsan waa inaan fahmo waxa laga doonayo marka halkaas ku jirna casharkayga waana ku mahadsantihiin dhamaantiin haddii aad doonayso sidaan ku soo biirtay kanaalka ku soo biiri kartaa oo wixii comment ra'yi ama su'aal qabtin oo comment ku soo dhiiban kartaa insha Allah waan isku daynaa kaga jawaabo wixii aanu qaraankayga kaasaan ku jirna casharkayga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.